waxay ahayd xaflad si weyn loo soo qaban qaabiyay oo lagu guldoonsiinayay qaar ka mid ah jilayaasha bilada ugu sarreysay ee laga bixiyo filimada ee loo yaqaano Oscar-ka. Will Smith oo kamid ahaa jilayaasha soo xaadiray xafladan ayaa hadal xaaskiisa laga yiri oo kaftan ahaa ka xanaaqay kadibna ninkii hadalkaas maada ah soo jeediyay bahal dhirbaaxa kaga soo jaray. Maxay tahay qisada ka dambaysa sabab uu dhirbaaxay waa maxay hadalkan maada ah ee laga yiri bal aynu idinku jalbeebiyo caawa Ramadaan Kariim. waxay ahayd xaflad farxadeed oo ay ka buuxdo farxad iyo qosol. waxa hadal kaftan ah soo jeedinayay Chris Rock oo dadka si maad ah uga qoslinayay. waxa uu jeedinayay hadalla maad ah oo dadka ku qoslinaya kadibna waxa uu maadisi ku soo darsaday xaaska Will Smith waxa uuna ku maadeystay madaxeeda yuulka ah ee diiran ee aan wax timo ah aan lagu arag. hadalkaas kaftanka ah waxa ka helay Will Smith aad ayuuna ugu qoslay balse waxa uu arkay xaaskiisa hadalkaas ka xumaatay dareentayna yaxyax. kadibna waxa uu aaday Chris Rock waxa uuna ku dhirbaaxay dadka hortooda. dadkii gabi ahaantooduba waa ay wada fajiceen waxa ayna la yaabeen waxa uu ku dhaqaaqay Will Smith. dadka qaar waxa ay u door xuleen kuna maageen waxa uu ku kacay Will Smith oo ah dhirbaaxada uu geystay Chris Rock. waxa ayna sheegeen inay hadal iska caadi ah iska ahayd oo kaftan loola jeeday in xanaaqaas oo dhan la sameeyana aysan saxsanayn. waxa ayna codsadeen in loo ciqaabo Will Smith waxa uu sameeyay darteed. ciqaabtiisana laga yeelo in laga saaro liiska dadka la siinayo biladaha Oscar-ka ee filimaanta lagu siiyo lagana saaro xafladda maadaama uu ixtiraami waayay qawaacida u degsan xafladda. balse dadkaas eedeymaha soo jeediyay ma aysan ogeyn sababta ka dambaysa xanaaqa Will Smith. xaaskiisu waxay qabtay lana dhibaatoonaysay xanuun la yiraahdo xanuunka dawacowga muddo sanooyin ah. xanuunkani waxa uu qofka ku sababaa in ay tintiisu daadato iyadoo ay tintu u daadanayso qayb ay madaxa uga daadanayso. qofka xanuunsanna waxa uu sameeyaa marka dambe inuu timihi iska xiiro maadaama tintu hadba meel ay ka daadanaysay. sidaas darteed waxa ay ku khasbanaatay xaaska Will Smith inay tinteeda dhan iska xiirto. aniga iyo xanuunka dawacowgu muddo waxaynu ahaan doonaa saaxiib sidaas darteed waxa waajib igu ahayd inaan tinteyda oo dhan iska xiiro. waxay dareentay murugo markii uu Chris kula kaftamay inuu egtahay aktarada filimka G.I. Jane ee madaxa diirayd. iyada kaligeed ayaan ku qoslin hadalkaas kaftanka ah wajigeedina waxay u jeedisay meel fog. mowqifka la yaabka leh kadib waxa dhacday arrin aan la filanaynin. waxa la shaaciyay magacyada dadkii ku guuleystay abaalmarinta Oscar-ka waxaana kamid ahaa Will Smith oo lagu siiyay bilada filimka King Richard. waxayna ahayd markii ugu horeysay oo uu bilada Oscar-ka noloshiisa ku guuleysto. markaas ayaa waxa uu Will Smith dadka hortoodii ka cudur daartay oo waxa uu habeenkaas sameeyay. waxa uu ogaaday waxa uu falay inay ahaayeen wax khaldan waxayna ahayd inuu qarsado xanaaqiisa. habeenkaas waxa uu awoodi waayay Will Smith inuu celiyo ilmadiisa isagoo ooyaya ayaa waxa uu yiri waan ka xumahay wixii aan sameeyay caawa laakiin jacaylku waxa uu ka yeelayaa in aad ku kacdo waxyaabo waali ah. anigu waxaan jecelahay inaan qoyskayga ilaaliyo oo xafido. ciidanku waxay diyaar u ahaayeen in ay qabtaan Will Smith wuxuu sameeyay darteed. ciidamadu waxay awoodi waayeen inay go'aan rasmi ah ka qaataan Will Smith way ka labalayeen in ay xiraan. Chris Rockna waxa uu diiday in uu ka gudbiyo wax dacwada atoorahan Will Smith ee dhirbaaxay. waxa laga yaabaa inuu garaystay inuu ku degdegay kamaadaysiga xaaskiisa. saacado yar kadibna waxa uu warkaasi noqday ama dhacdadaasi noqotay mid caalamkii oo dhan ay u kala gooshtay oo laga warramayo oo laga sheekaysanayo. dadkina waxay u qaybsameen kuwii daawanayay kuwa ayiday Will Smith wuxuu sameeyay iyo kuwa ka soo horjeestay. waxa uu difaacday xaaskiisa 5 daqiiqo kadibna waxa uu ku guuleystay bilada Oscar-ka ma aysan ahayn wax lala yaabo mucjiso ah. shacabku waxay dhaheen waxa murugo leh in malaayiin hortood uu ku waayay dareenkiisii uu iska xanaaqay Will Smith. arrinkaasna waxa dhici karta inuu arrin iska kaftanaa oo aan loola jeedin in lagu ihaanaysto xaaskiisa. si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe, like, follow iyo share. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabadgelyo. salaam markasta.